السلام عليكم. هدii aad jeceshahay orodka oo aad tahay qof orodka jecel maalin walbana aada amaba ka soo qaad hadii aad tahay qof orodka neceb oo in uu orod aado ay ku tahay laakiin goolkaaga yahay in aad miisaan waliba si degdeg ah aad iskaga rido videogan ilaa dhamaadkiisa ila daawo fikradda aad maanta haysato mid aan ahayn ayaan kugu shubi doonaa. Videogana maantana wuxuu diiradda saarayaa hadii aad 30 daqiiqo 30 maalmood orod ah aad naftaada ku qasabto isbedel noocee ah ayuu jirkaaga dareemi doonaa. waa 6 qodob oo kaliya xaqiiqatan aadan horay u maqal. maanta hadii aad maqashidna miisaanka ku saaran waqtigiisa waa uu dhamaaday. orodka dabcan wuxuu ka mid yahay exercise-yada maanta dadku aysan jecleen waayo uu dhib badan yahay, lafa xanuun uu leeyahay, daal tiro badan, jirkoo ku go'a. dabcan haddaad tahay qof shaqeeyana maalinka kale inaad shaqada u soo kacdo aad ayay u dhib badan tahay, laakiin badankeen hadii aan ogaan lahayn faa'iidooyinka ku jira wax aanan orod ahayn maba sameyn lahaynba. khaasatan dadka miisaanka dagaalka kugula jira ayaan gooni ula hadlayaa. wax kale maadan sameyn lahayn oo aanan orodka ka ahayn waadna ku raaxaysan lahayd waayo exercise-ka orodka ay dhahaan waa exercise-ka kaliya ay ku tusi kara natiijada aad raadinaysid weliba waqti gaaban. faa'iidada koowaad marka uu orodka leeyahay, ma rabtaa in wadnahaaga caafimaad helo? dabcan bini'aadanka halka kaliya ama meesha kaliya laga wado waa wadnaha. waxaad ogaataa jirka oo dhan wuxuu caafimaad ku heli karaa in wadnahaaga caafimaad helo. taasna waxaa ku heli kartaa maalin walba hadii aad 30 daqiiqo orodo. waxaan kuu ballan qaadayaa oo aniga aan kuu ballan qaadayaa wadnahaaga weliba bigga ugu sareeya ama meesha ugu sareysa ee caafimaadka uu ka helo in uu gaaro. waadna cabiri kartaa 30 maalmood kadib wadnahaaga waadna arki doontaa. xanuunada sida stroga iyo dhammaan kuwa la isku dhaho cardiovascularka, metabolic syndrome-ka, cudurka sokorowga ay dhahaan macaanka, dhammaan kuwaasna waxaa kaliya aad uga badbaadi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokow inaad jadwalkaaga orod aad ku soo darto. fadhiga ka kac marka oo xiro kabahaaga. dabcan inaad orod garoonka u aadidna lacag kaama gadna. berita subax waxba ha sugin, haddaba waad istaagi kartaa, laakiin wax yar isu waxaa jirto 5 faa'iido kale oo aan rabay inaan kuu sheego. laakiin maadaama aad videoga aad ugu raaxaysanayso fadlan like ha ka ilaawin inaad subscribe dhahda channelkana waa inoo dhiirigelin. numberka labaad, weight loss. ma raadinaysaa in weight loss aad samayso miisaankan aad iska rido? waxba gaardiyo ha ku boodin, waxba jimka intaad tagta ha boodboodin. waxaad samaysaa oo kaliya 30 daqiiqo treadmill-ka kor ama garoonka tag, orodkaagana bilaabo. laakiin waxaan ka codsanayaa inta aadan samaynin ka hor in aad buug yar soo gadato, taariikhda aad ku qorado aad orodkaas bilaabaysid, miisaankaagana aad ku qorado. 30kaas maalmood kadibna aad fiiriso halka aad taagan tahay iyo waxa iska kaa bedelay. xaqiiq miisaanka wuxuu kaaga dhacayaa si aanan caadi ahayn. qodobka saddexaad, stressi adiga waa isdayseen. exercise-ka wuxuu kor u qaadaa norepinephrine-ka, waa hormoon moderate ka dhiga ama dhexdhexaad ka dhiga stresska. dabcan haddii maalinka kaa wareero oo aad ama shaqada ku soo wareerto, dad baa markay shaqada ka yimaadaan aaminsan in ay daalan yihiin waxna aysan samayn karin. marka aad soo wareerto, shaqada aad ku soo daasho, confuse aad noqoto, kabahaaga intaad xirato orod 30 ilaa 20 daqiiqo ah aad una fiirso maalinkaas isbedelka kugu dhaco iyo stresska iyo culeyska ku saaran dhididka kaa soo baxayo haddii uu raaci waayo aniga isoo wareyso. qodobka afaraad, awood aadan lahayn ayaad dareemi doontaa. maalinkii oo dhan qofkii horay u sameeyey ayaa garan kara. dabcan weliba orodka subaxdii la orda salaada kadib intaad orod aaday ka timid weli biyo yar oo qabow ah ma ku qubaysatay. xaqiiqatan maalinkaas awoodda iyo firfircoonida aad ka qaadayso maalmaha kale way kaaga duwanaan doontaa. sidoo kale inta badan waxa aan jiimka uga caajisna mataqaanaan waa awood daro, caajis iyo inaan sariirta ka kicin karin. laakiin marka qofka uu la qabsado jadwalka noocan ah, uu subaxdii orodka 30 daqiiqo in uu sameeyo uu la qabsado, mar walbo lafihiisa waxay bilaabayaan in ay awood yeeshaan, murqihiisana oxygen tiro badan ha lagu shubayaa, waxaana imaanayso in strength iyo awood uusan horay u lahayn uu dareemo qofka. qodobka 6aad marka ee ahna qodobkeena noogu dambeeyey, memorygaaga ayaa kor u kacaya. haddii aad tahay arday ama qof waxbarashada aad u daneeya oo aad ahayd qof dabcan ilowsho badnaa, wax walba iloobi jiray, akhriska kugu dhib badnaa, orodka ku soo dar jadwalkaaga. idinku ma aaminsanidin exercise-ka waxyaabo tiro badan oo waxaa jira caafimaadka guud ahaan uu ka bedelo, gudaha iyo banaankaba. jirkaaga banaankana wuu ka qurux badnaanayaa. hawsha gudaha ku jirta ee xinjirta, dhiigga, xididada, hormoniska ku tacalluqdana isbedel weyn ayaa ka bilaabanaya. li'annahu faa'iidada ugu horeysay waa tii aan ku soo sheegnay in wadnahaaga caafimaadkiisa isbedelo. waadna ogtihiin jirka hawsha ka socoto iyo pumpska iyo dhiigga la kala wareejiyaba wadnaha ayaa kala wareejiya. marka waxaa la sheegaa exercise-ka inuu kor u qaado wax soo saar unugyada hippocampus-ka ee la xiriiriya xusuusta iyo qaybta aqoonta ee maskaxdeena. anigoo intaa faa'iido kuu sheegay, haddii aad weli kursigaaga kusii fadhido
oo aadan kobihii raadsanaynin dabcan waxaan u arkaa nasiib daro oo walaalkiin Coach Sabri Axmed Xaashi. Salaamu calaykum.